السلام عليكم ورحمة kusoo dhawaada channelkeena caafimaadka bulshada oo mar walba ka socodsiin waxyaabo ku saabsan caafimaadkeena iyo caafimaadka bulshada mar walba halkan waxay kala socodsiiyaan anigoo Mariin Axmed Aadan haddaba maanta maxaan ii wada akhyaaray maanta waxaa ka hadli rabaa 13 qodob oo aad iyo aad u muhiimsan oo loo baahan yahay qof walba inuu isticmaalo si uu kor ugu qaado caafimaadkiisa ugana hortago cudurrada faafa oo ka mid yihiin cudurrada faafa sida malaariyada oo kale typhoidka oo kale TB oo kale cholera ama daacuunka oo kale AIDS oo kale jadeecada iyo cudurrada kale oo badan oo faafa ama cudurrada la kala qaado si uga hortagi lahayd isticmaal 13 dhaqan si cudurradaas ay ku soo haweysan ama khatartooda ay u yaraato marka walba aad cunto karinaysid si fiican u kari cuntadaas adoonan si fiican u karin cuntadaas oo ognahay dabka jeermisyada waa dilaa oo qof walba Soomaaliya ama Soomaalida hore wax isticmaali jirtay dabka uu isku gubi jirtay qof haddii meel xanuunta ama meel laga qabto kale ama meel uu jeermis ka galo ama caabuq uga jiro waa lagu gubi jiray meeshaasna qofka u fiicnaa jirtay iyadoo Ilaahay uu daawadiisa ugu daray dabkaas marka dabka jeermisyada aad u dilaa jeermisna dab meel u gala jeermis mugsi jiraya dhaha Soomaalida marka dabka waa la isticmaalaa si fiican cuntaas laga kariya sida hilibka kale cuntooyin badan oo jeermisyada ay ku soo dhuuman karaan baa jira marka si fiican cuntaas laga kariya hadaa iska kariso cuntada waxa yareynaysa khatarta cudurrada sidoo kale waxaa jirta in mar walba iska dhaq cuntooyinka aan la karinin sida khudaarta kale cunto aan la karinin iska dhaq mar walba ama sida lagu cuno sida tufaaxa kale liinta kale salarka kale cuntooyin badan baa jira oo la cuno ayagoona la karin marka cuntada si fiican iska dhaq dushooda jeermisyo badan bay hol gareyn karaan ama jeermisyo badan baa deegi kara marka iska dhaqa cuntooyinkaas labo cuntada intaada cunin si fiican gacmaha iska dhaq mar walba hadaa gacmaha dhaqdo oo gacmaha nadiif yihiin waxa yaraanaya jeermisyada ama khatarta cudurrada sababtoo ma ogid gacmaha markii wasakh yihiin hadaa cunto cuntid ma ogid jeermisyada ama ilma aragtada gacmaha ku dulduugan ma arki kartid marka dhaqdid ama waqti fiican aasiisid gacmaha dhaqtaankooda waxa yaraatay khatartii ama cudurradaas ay kugu soo gudbi lahaayeen marka mar walba gacmaha iska dhaq waa tan saddexaad mar walba cab biyo badan hadduu qofku cabo cudurrada waxa waaye way wasakhoodii way ka dhaqmanaysaa casharahoodana waa uga hadlay casharo horena waa ku sheegeen biyo badan ay aad u fiican yihiin oo qofka biyaha badan uu cabo oo jirkiisa aad iyo aad nadiif u noqonayo marka biyaha badan ha la cabo isticmaal fasaleta ama tissue marka hindhisaysid ama qofac sidoo kale tissue isticmaal oo qodobka saddexaad qodobka afraad isticmaal ama dadka waxyaabaha adigu waxyaabaha isticmaashid ama diyaha ku jirtay oo kale skiinta madaxa lagu xirto kale cadaygo kale waxyaabahaas dadka la sheer gareyn ama dadka la isticmaal sababtoo ah waxyaabahaas waxa cudurro badan baa isku soo dhuuman kara sidoo kale cidii jarto kale qofku AIDS qaba ama cudur qaba hadii uu ku jirto fartiisa oo meel ay ka jirto ama dhiig leh wixii oo adan ku sii jirtid waxaa laga yaabaa in cudurkii qofkaas hay adina hadii meel ka jirto inuu ku faafo marka iska ilaali waxyaabahaas kaliya isticmaal qof kale hala sheer gareyn cidii jarta cadayga iyo waxyaabo kale badan oo qofka personal needs loo dadka lama isticmaalo dharka kamida dadka waxyaabahaas la isticmaalo kaliya gaar ah ku ahaadaan alaabahaas oo kale waxa kale oo kamida in qof walba mataqaana ama alaabahaas xataa marka isticmaasho oo tuuri sidoo kale meelaha caruurta isticmaal ku ciyaarto kale ku tuurin ama god oo kale ku dhixrid marka sakiin ama cidii jar oo kale isticmaashid ama irbad rabtid inaad iska tuurtid ha ku tuurin meelaha caruurta sababtoo caruuraha aqli ma lahan way isku mudi karaan waa ku ciyaari karaan ayaga isku jeexi kara marka walaal waxa kula talin lahaa mar walba isticmaasho waxyaabahaas inaad ku tuurin meel caruur joogto ama caruurtu waxyaabahooda ay isticmaalaan ku xariiraan tuurin god ama meel kale ku tuur shan waxa waaye qodobka shanaad istalaal marka cudur laga hortagayo waxa kooka in la istalaalo cudurro badan oo TB ay ku jirto cagaarshowga ku jiro jadeecada hargabka waa iska talaala cudurradaas sababtoo ah talaalka waxa waaye cudurradaas uu ka hortagayo ama jirkaaga difaaciisu kor u qaadayo marka cudurkaas ma soo gali karo jirkaaga istalaal marka ama caruurta hala talaalo caruurta Soomaalida waliba aad waagi hore caruuraha lama talaali jirin waxyaabo khaladaad laga aaminsanaa talaalka marka hadeertaan hal istalaalo caruurtana hala talaasho waliba dadka caafimaad ka shaqeeyaan hepatitiska ama cagaarshowga aad ugu baahan yihiin talaalka sababtoo ah dadka la kulmayaan ma oga inay qabaan cudurkii TB do kale dadka aad u qabaan ama qofka qabo oo duusa daawo qaadan waa ka qaadi kartaa marka isticmaal talaalka waa aad u fiican yahay caafimaadkaaga iyo caafimaadka bulshada kugu hareeraysanba marka yaree taabashada xayawaanada duurjoogta kale ina yareysid xayawaanada waa 6 qodobka 6aad waxa weeye yaree
xayawaanada duurjoogta kale inaad taabato ama meel ay joogeen aad tagto kale ama meel ay fariisteen oo kale sababtoo wasaqdoodii ama jeermisyadii baa adina kugu soo faafi kara ama jirkaaga soo geli kara mar walbana ka taxadar haddaad taabatid xataa iska dhaq gacmaha isla markiiba markaa iska dhaqid gacmahaaga ay nadiif yihiin waxaa waaye cudurka khatartiisa way kaa yaraatay marka mar walba 28aad qof haddii suuli aad degan tahay ama meel public ah suuliyaasha public oo kale ama meelaha suuliyaal haddii dad badan kula isticmaalaan falash sababtoo cudurro badan waxaa jirta lagu kala qaado musqulaha kale infection badan baa musqulaha galaan ama bacteria badan baa musqulaha joogaan funga ayaga kamid ayagana ama infectionka dadka kaadida kaga dhaco kale suuliyaasha aad looga qaadaa marka mar walba oo qofku uu suuliga lagula isticmaalo ama haddii dad suuli kula isticmaalaan iska falash adoona falashin suuliyaas ha isticmaalin ama biyo badan iskaga shub iska biyo raaci ama iska dhaq xiro mana kaneeco ama mosquito net mar walba oo qofku uu u baahan yahay mar walba dadka wadamada Afrika badana cudurada ku badan tahay waliba Soomaaliya Uganda iyo Suudaan wadamo badan baa jira oo waliba aad looga qaado kaneecada hadduu qofku mar kaneeco seexanin ama mar kaneeco la'aan uu seexdo cudurro badan baa ku dhici kara oo kaneecada ay kamid tahay isnidaamkaas waxyaabo badan baa jira oo kaneecada ay ugu horeyso marka walaal isticmaal mar kaneecada ama hadirtaan waa mar kaneeco waa baleetiyay waxa la isticmaalo waxyaabo dabka la geliyo karo ama korontada la geliyo karo waxyaabo badan kiniini oo kale unsi oo kale ayadana kiniini ama loo shidanayo kiniini oo unsiga oo kale la shidayaa isagana jira marka ka taxadar walaal caafimaadkaaga soo kor uga qaato isticmaal mar kaneecadaas ama waxyaabaha kale oo hadirtaan ayaamaha soo baxeen oo kaneecada lagu dilo si walaal malaariyada is jirka usoo gelin marka taasna waxay kamid tahay kor qaadida caafimaadka sababtoo hadii malaariyada iska difaacid caafimaadkaaga kor buu noqonayaa iska ilaali taabashada biyaha aan daaweysnayn ama ku dabaalan biyo aan daaweysnayn ama ha cabinba biyaha daawo la'aanta waxaa jira ilma aragti badan baa ku jiraan marka biyo aan daaweysnayn ama baliyada kale biyahooda kale biyaha wasaqdo kale ku dabaalan ama ha cabin sababtoo aad ay ula falgalaan bakteeriyadaas ama saalooyinka oo xoolaha kale ku dhex dhici karta ama waxa waaye biyo wasakhaysan weligaaba ha cabin ama isyarayna dabaashoodan ama ha ku dabaalanba sababtoo caafimaadkaaga uma fiicna samee alamiito ama ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii soco sababtoo qof walba wuxuu u baahan yahay jirkiisa in uu mataqaana activity uu sameeyo ama uu dhaqdhaqaaq ama dhiid uu ka imaado u baahan tahay mar walba haddii aadan sameynin activitygaas ama jirkaaga uusan dhaqdhaqaaq sameynin cudurro badan baa kugu soo wajahan marka cuduradaas ugu hortagtid cab wax ka wada soco ugu yaraan 30 daqiiqo ama physical exercise samee jimicsi samee ama alamiito waxa waaye alamiitooyinka aad u fiican yihiin oo qofka caafimaadkiisa